أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Sinaan TV oo uga barateen baraha bulshada Facebook iyo YouTube-ka. dhammaan ku xiriirayaasha daawadayaasha Sinaan TV, maamulayaasha Sinaan TV iyo martideeda sharafta laba waan idin salaamayaa salaan aad iyo aad u qaaliya. ألا وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. halkan caawa waxaan idinku hayaa laba marti oo aad iyo aad qaali iigu ah oo ay kala yihiin Cabdalla Cabdo iyo Axmed Rayaale. ku soo dhawaada Sinaan TV idinka oo bulshada intaa la eg idin daawanaysa salaamaya insha Allah. waan ku soo dhownahay walaashay adiga sharafta loo soo casuumeeyay marka waan ku soo dhownahay waxaan salaamayaa ummadda reer Djibouti iyo technician-sha Sinaan TV aad baan wala salaamayaa iyo Axmed Rayaalo oo walaalkay waan salaamayaa sidoo kale guud ahaan waan salaamayaa daawadayaasha dunida dacaladeeda kala jooga ee ku xidhan TV-ga Sinaan TV waxaan idinku soo salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلنا ويدي سلامينا دمان دتك يدي داونيان ويدي سلاميان سكور دوادا مركوبات مرة بعد باسنان تي في انت أنا أودق قلين برنامج كيجان أنا عاو أنا هالكن أصو كنيسو بدينا مركو هلا آدي آد بدكم هالسنتين سيدا وناكسنة باقة وسو جوابتين مركو حاجة برنامج كان عاو أن جعلنا إن أن كهذا الله وهي موضوع عيسو sidee bay u ekaan doontaa dawladda jadiidka ee Djibouti laga dhisi doono haddii uu Ilaahay yiraahdo. inta aanan guda gelin mawduucaas ama barnaamijkaygaasi waxaan jeclaan lahaa marka hore in aan labada mudane ee halkan ii fadhiya aan weydiiyo mar walba waxaa la maqlaa mucaarad iyo muxaafad. haddaan ku hormaro Cabdalla Cabdo waan ognahay in aad tahay mucaarad ma ka soo jeedaa qaybta ama باقي ككوبان dadka mucaaradka ah mise waxa tahay nin wadani ah oo ay dhibaatada Djibouti taala oo ka hadla walaashaydii waa su'aal fiican anigu waligay xisbi ma gelin waxaan ahay nin reer Djibouti oo nacay dulmiga ummadda reer Djibouti lagu hayo oo ka halgamaya in ummadda reer Djibouti xorriyadooda iyo sharaftooda u soo noqoto baan ahay laakiin xisbi mucaarad kuma jiro waxaan ahay société civile ka waxaana kamid ahay Conseil National pour la Transition ma kamid ahay oo member ka ahay marka intaasaan kugu soo koobaya walaashaydii. waad mahadsantahay. sidoo kale Axmed su'aasha aad way ku sugaysaa. anigu kulli wax xisbi oo hadda ku jira oo aan xubin ka ahay jiro waxaan ahay qof amba urur amba dad gaar ah oo aan kamid ahay xaggayga hadda jiro waxaan iska ahay qof siyaasadda kooxda maamusha dalka Djibouti mar walba ka soo jeeda tan muddo dheer intaas ayaan ahay laakiin kuma oran karo hadda xisbi hebel iyo koox hebel iyo dadka baan wada shaqayn arrimo mucaarad la xiriira wada leeyahay oo aan ku oran karaa ma jiro. si fiican aad baad u mahadsantahay adiguna waxa weeyaan maadaama aad ka soo jeedin xisbi mucaarad ah oo tihiin dad reer Djibouti oo wadani ah oo ay dhibayso laakiin dhibaatada Djibouti taala oo dibadda ku soo baxay inaad ka hadashaan waxaan jeclaan lahaa in aad iga warantaan marka hore mucaaradkan aad aragtaan ma istaahilaan in ay iyagu dawlad qaban karaan oo ma dhaamaan muxaafadiinta mise sidan ay u kala daadsan yihiin bay weligoodba ahaan doonaan waayo fikrad meeshan ittifaaq ah oo la isugu yimid ma aragno sibado aragtaan mucaaradka dibadda jooga.
عبد الله هداك كوريسيو walaashaydii waa igu socon qofkan la hadlaya ba Axmed ka horreysay aan dhageystay dhibaato male okay axmed haddii aan idinku horreysiiyo su-aasha haddaad maqasho waa okay haddii kalena waxa weeye mucaaradkan dibadda joogaa ma istaahilaan in ay dowladda jabuuti madax ka noqdaan mise way kala daadsan yihiin oo iyagu qudhigoog waxay u baahan yihiin inay soo habeeyaan mucaaradku waa dad ka mid a dadka reer Djibouti ee dunida meeshay doonayaan ba ka joogaan kooxda meesha ka taliso sida ay wax u maamulaan u beddelayaan bulshada u bay ka mid yihiin mucaarad baa kala daadsan bay bulshadu inta badan dadka lagu warwargeliya ama loo sheegaa waxaan qabaa mucaarad uu kala daadsan ma jiro haba yaraatee meel ka jiro ma jiro mucaaradka Djibouti waa dad u dhaxeeyo ama waa dad ku jira halgan adag oo ayna lahayn mucaaradada geeska Afrika ee dalalka jaarka ah ama dunida inteeda kala ah maadaama uu qofka mucaaradka ee reer Djibouti sidaa yahay oo uu halgan adag kula jiro koox uu u qaabay inay yihiin dal dimuqraadiyad ka jirta inay maamulaan laakiin qaabkooda siyaasadeed markaad si gundar ugu fiirsatid uu yahay kuwa diktatoriyada ama xukun military oo kale mucaarad la dagaalamayo oo halgan adag kula jiro oo dalkiisii aan xornimo ku helaynin xuquuq aan ku helaynin nolosha asaasiga ee uu qofku ku noolaan kari lahaa dalkiisa aan heli karin oo haddana weli soo taagan oo nool haddana haddii uun inta badan laysa soo daboola taagtaago la yidhaaho mucaarad baa kala daadsan iyo ereyada nooca ah waxaan u arkaa wax erey gef ku ah dadka mucaaradka Djibouti haddii aad barbardhig ku samaysid mucaaradka dunida waxaad arkaysaa inuu yahay dad aad u adag waa inta mucaaradka waxaan ka hadlaya inta sheegata kama arkayo waxay la tahay aragtidu qofku meeshuu doonayo waa jooga ee mucaarad iyo muxaafidba ee dalka reer Djibouti waxa uu khasaba inay helaan wax ay dadku wada leeyihiin oo ay dadku wada si dhab ah ay uga wada baratami karaan ay ugu wada loolami karaan qofka ay ummaddu doorato ee ay ummaddu ku qanacdana uu hoggaanka dalka qaban karo meeshuu doonayo waa joogo gudaha waa joogi karaa dibadda waa joogi karaa xitaa dowladda hadda jirtana wuu noqon karaa midda doonayba aan noqoto waxaad laleeyahay sad wada ogtihiin in la helo wax ay ummaddu iyada oo xor ah ay doorato oo iyaga matala intaas baa laleeyahay laakiin ereygan mucaaradku uu kala daadsan yahay laleeyahay mucaarad baa kala daadsan marka laleeyahay waa inaad samaysay wax isbarbardhig waa inaad samaysay mucaaradka Djibouti iyo siyaasadda Djibouti ay la halganka kula jiraan siday tahay waa horta in la ogaado markaa darteed wixii dhaliila halkaaba laga garan karaa inay dhaliil leeyihiin waa la garan karaa inay dhaliil qaban karayna waa la garan karaa intaasaan kaga baxay waad mahadsan tahay isla su-aashaas cabdulla cabdo waxaan jeclahay inaad naqdisay su-aasha maxaad kaga jawaabi lahayd wallahi waxaan oran lahaa sida aad igu su-aashaadii ii weydiisay horta waxaan doonayaa inaan Axmed si fiican uga jawaabay mucaarad kala daadsan ma jiro waa mucaarad dadkooga u halgamaya laakiin waa siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle inuu adduunka ka dhaadhiciyo mucaaradku waa dad kala daadsan mucaaradku waa dad isku iman kareen mucaaradku waa dad waxba heshiis ku ahayn si halkan waxaan ka caddeynayaa dadka mucaaradka xisbiyaasha leh dad wax barto oo wadaniya inay yihiin oo Ismaaciil Cumar Geelle ka fikrad fiican oo ka cilmi badan oo ma garanaysa cizi leh oo etik leh inay yihiin baan halkan ka caddeynayaa RBB waxay soo jirtay ilaa calankii aan qaadanay 1978kii baa lagu abuuray dakhil waa dad calooshoodu shaqaysta ah oo nin qorata xukumo ay waxba oran karin xisbiyaashaan arkay ha noqoto ciday doonto waa dad wax isweydiiya waa dad ma garanaysa su'aalaha amba wixii ummadda u roon ka sheekaysta laakiin mataqaanaa kalitaliya Ismaaciil Cumar Geelle xisbiga wuxuu noqday xisbi uu leeyahay oo qoys ay leeyihiin amba family ay leeyihiin ee ummadda reer Djibouti ay lahayn waxa weeyaan waa xisbi lagu sameeyey qabiil ku dhisan oo qabiil lagu bixiyo mataqaanaa jagooyinka taana waan kasoo horjeedaa xisbiyaasha maanta jira waxaad arkaysaa liidarada xisbiyaasha mucaaradka inay yihiin inama shabaaba oo dalka u dhashay oo mutacalimiina oo ummadda isku keeni kara oo dalkan meel fiican marin kara iyay ila tahay walaashaydi waad mahadsan tahay su-aashaas waxaad dhigaysaa dad fara badan oonan ku jirin ee xisbiyo aan ka koobnayn oo laakiin sidiina oo kala danqaday iyaa soo fadhiista baraha bulshada oo ku odhanaya waxa waan mucaaradaya horta kelimad mucaarad iyo muxaafad waa laba kelmadood carabi ah laakiin waan isticmaalnaa canfar iyo soomaali
dadka horta ma u yar macnay kartaan mucaarad maxay ka dhigantay muxaafadna maxay ka dhigantay mucaaradku waa qof diidan un amba aragtid markaa taagan noocay doonaysaba ahaato oo isagu markaa hayo fikir ka gedisan fikirka markaa meesha lagu maamulayo amba kasoo horjeeda kooxda amba dadka markaa talada meel hayo waxay doonaysaba ahaato muxaafidkuna waa af soomaaliga waa taageersanaan ayaa loo yaqaan afka caafimaadka waa qof taageersan aragtida markaa wax lagu maamulayo marka de qof kastaba markaa dadku isku dhan ma noqon karaan oo de nebi maxamed oo nool ayay dano marmarka qaarkood aragtidiisa ka hor iman jireen marmara ay raaci jireen taa basharka ayaa u samaysan laakiin dadku waxbay ku heshiiyaan waxa de markaa lagu heshiiyo in la hirgeliyo unba mar walba muhiima sidii loo qortay ee loogu heshiiyey inuu wuxuu sidiisii u socdo unba muhiima waxaa lagu heshiiyey qaar way taagay karaan qaarna way kasoo horjeedin karaan marka labada erey af soomaali haddaad ku rabtid macnaha ay leeyihiin waa taageersanaan iyo diidanaan af soomaali saas bay ku noqonaysaa mucaaradku ereyga diidanaanta inay taa qiyaasaya haddaad luqawiyan aada u jeedid inaad macnaha af soomaali aad rabtid aad ku heshid waa macnaheedii taasi okay waad ku mahadsantahay axmed oo sida wanaagsan u macnaysay waayo dad fara badan baa ku odhanaya anoo mucaarad baan muxaafad baan iyagoon garanayn macnaheeda dad fara badan oo soo fadhiista baraha bulshada oo kelimadaha intay isticmaalaan haddana sii kala jejebinaya dadka oo mucaaradka dadkii noqon lahaa wax diidi lahaaba ee ka hortegaya waayo cay ay isticmaalayaan taasna anigoo ereyga aan ka bixin waxaan isticmaalayaa kelmadda cay la yidhi inay inaga mamnuuc tahay sinaan t v haddaan nahay iyo cunsuryaduba annagoon caytamin iyo fikraddeeda dadka gaadhsiin karnaa markuu laakiin qof ibni aadama halkaas soo fadhiisto oo caytamo isagoo kule mucaarad baan ahay maxay dadkii gaadhsiinaysaa in ay dadkii ay nooc kale u arkaan ay damaqdo oo ay hadhow toole ay yidhaahdaanba waxba ma mucaaradayaan waayo waxay jabuuti kala jejebiye shacbigeedii jabuuti shacbigeeda marka la waraysta maanta waxay taagan yihiin iyaan raacnaa maanta annagu cidaan raacnaba ma arkayno dad wada caytamaya dad wada qabiil u kala dhaqaaqay dad kala daadaadsan baan aragnaa marka mucaafad iyo mucaarad annaga midna dan nooguma jirto waa waxay dad shacbiga reer jabuuti u toosi laayihiin maanta waa ta haysata dhibaatada haysata haddaan arrintaas halkaa aan kaga baxo waxaan u soo noqonayaa cabdulla cabdo xukunka ilaah baa iskale qofka bini aadankana lama yaqaan waqti uu ka dhaqaaqayo xukunka waxaa jira xitaa haddii quwad qofka laga qaadi waayo inuu wadkii ilaahayba yimaado xukunkan imikana haystaaye hadduu dhaqaaqo maxaad odhan lahayd adiga oonan ka soo jeedin xisbi fikrad aad siin lahayd dadkan axsaabta ee doonaya dhulka inay wax ka noqdaan fikradda dawladda jadiidka ee dhismi doonta hadduu ilaahay yidhaahdo fikradday ku dhaqmi doonto wax ma nooga sheegi kartaa صح ولا شيء ورته وحن يرش حق منصور دول تاجي أول أحمد يري نك مركل يرها معارض وانين دليلي سي دولد وحو ودو أو ديدن سيدا دالك لو مارين يديدن وي معارض وكاوي أو هايستا فكرة كدوان سيدا دالك لو مارين يو أما دالك لوش لو وضو أو حكا لو وضو دالك الاسكو ديدن وفكرتهم وحا الاسكو ديدن هاي شخصي إيو قبيل ماه محافظكuna waa ninka meesha talada haysta ee ogol deysan wax loo maarinaya wax loo wado weeyaan labada un baa u kala dhacaysa nin le warsan wax looma wado oo san baa loo wado oo san baa ka fiican ummadda wax loo gaarsiin karaa iyo mid kale maysan baa lagu wadaya labada u weeyaan fikradood mucaaradka iyo muxaafidku ta kale hadday dowladdani dhaqaaqdo waxaa wanaagsan horta inaa la dhiso dowlad kusimeel gaara oo ka shaqaysa dastuurka jabuuti waa la baabiyey dastuur wanaagsanna maaha waa dastuur qabyaalad ku salaysan waxaana wanaagsan dalkeena jabuuti inaa la sameeyo dastuur mataqaanaa laga soo qaato ina dastuurada adduunku samaysan yahin waxaan dib u dhasayno maaha wixii naga cajabiya adduunka inaan qaadano oon dhaqankeena ku maarayno dastuurka aan doonayno waxaa kamid a inaa la sameeyo saddexda branch inay magaranaysaa isku awood noqdaan taasaa ugu horeysa ta labaad dalkeena mataqaanaa 65 kursi ee dibitayaasha waxay jirtaa ilaa gumaysigii iyay jirtay waxani 65 population way bateen waa in la badiyo mataqaanaa dibitayaasha ta kale shamaqda senaa in la sameeyo oo tixgeliya xeerka iyo magaranaysaa maamulka si dalka magaranaysaa sharciyaasha dalka loo dejinayo ta afraad
systemka maxkamadaha in la bedelo laga dhigo system of trial oo lagu bedelo system mataqaanaa oo ninka judge uu corrupt uu noqon systemka Faransiiska waa system corruption ku samaysan oo corrupt weeyaan waxaan ka jecelahay systemka Mareykanka anigu waan soo dhigtay systemka Faransiiska systemka ma cajibin waa system xun oo wanaagsaneyn waxa taa maanta adduunka tusaysa Donald Trump sharciga Mareykanka ka qabtay wuxuu doonayay asagoo awood badan haysta asagoo madaxweyne ah laakiin institutionka Mareykanka qabtay oo diiday wuxuu meesha ku detaagu ka waday marka institutionka cankaas loo baahan yahay ta kale waxaan kaloo aaminsanahay ina karaasida mataqaanaa lagu qaybtamayo qolo anigu waan ka soo horjeedaa anigu waxaan ka jecelahay nin kasta inuu ka soo baxo halkuu ku dhashay ama halkuu galo uu ka soo baxo oo dadka xafada gashay ay u codeeyaan cidda doonto ha noqdo waxay dhici kartaa inay dadku kala bataan dadka dadkay jecel yihiin inay doortaan shakhsiga doonayaan inay doortaan shakhsiga kasta doonayaan inuu ka qararo taasaan aaminsanahay ta labaad waxaan aaminsanahay ninka u cararaya kursiga in lacag laga qaadin sida dalka Djibouti ka jira la yiraahdo dibiteega maliyuun faran Djibouti bixiyo marka iyaa meesha laga xiraya ninka maskiinka ah ee fikrada fiican haysta ma carir kartay ka dhigan tahay ninka lacagta loo carari kartaa taa waan iska ilaalinaa siisiga Mareykanka taa kama qaadanayo taa waan dhaafayna waxaan doonaynaa ninka wadaniga inuu iska carir karo lacagta campaign-ka ka cararayo hadduu xisbiga jiro xisbigiisu bixiyaan laakiin in lagu ashburo ninka soo dibito carar maliyuun faran Djibouti kana taa waxa la yiraahdo discrimination dadka lagu sameeyo magaranaysa halka dhaqaalaha marka taasaan aaminsanahay madaxweynahana waxaan aaminsanahay lagu daro dastuurka ilaa la impeach garan karo hadduu dalkan qaaymo iyo hadduu magaranaysa gudbo iyo dalkan la ka iibiyo sidoo Cumar Gelle hadda uu sameeyo waxa weeyaan dalkii buu iibiyey jagooyin buu iibiyey beesas buu saxay ummadda reer Djibouti ogeyn barlamaankuna uu saxin waa magaranaysa macayo waa kalitaliye taana waa ta magaranaysa maanta dhibta aan ku jirno gaarsiisay waxa markasta wanaagsan ina marka la qaadanayo qaraar as a team work loo qaato magaranaysa qaraarka ummadda reer Djibouti laga dhaadhiciyo inay ogol yihiin ta kale sharciyaashan aan sheegayo sharciyaal ma aha xisbiyaasha mucaaradka iyo society civilka ay sameeyaan haday sameeyaan waa in hordhigaan ummadda reer Djibouti ay footeeyaan inuu sharcigaasi ay doonayaan ayay dooneen iyaga in la weydiiyo waan sharci kasta oo la sameeyo in ummadda loo hordhigo ayaan oranaya walaasha aad baad u mahadsan tahay anigoo halka su'aal ka weydiinaya waxyaabaha kale aad ku hadasho oo dhan waa lagala falqoon karaa waa la qaadan karaa ama waa la diidi karaa waa fikrad wanaagsan laakiin halka kuraasta haddaan ku noqdo 65 kursi baa tilmaamtay 65 ka kursi yani madaxweynaha marka laga reebo waa 64 baan jeclahay marka 32 waxa qaaday jiray marka cafarta 32 ciisuuna marka wuxuu ka sii siin jiray Soomaali iyo Carabba marka waxaad leedahay gebigooguba ha baaba'aan oo nin walba meesha laga soo doortay intuu doono ha noqdo qabiil kale xitaa hadduu noqdana oo la soo doortana ha qabsadaan meesha miya waa sax weeyaan waxaan ku siinayaa example yar baan ku siinayaa kaba soo qaad kaartakat waxaan kaba soo qaad mataqaanaa 65 kursi 60 bay Soomaali noqotay so what dimuqraasiyad baa lagu soo doortay xaafadda ay ka soo baxeen bay matalaan qabiil ma matalaan jilib ma matalaan systemkan meeshana lagu talagalay waa systemkii Faransiiska ka dantayga Djibouti ee Faransiiska waqtigan ay sanay qabiilkiina ku qornay iyo ciidan ka ku qornaa waxa waa inaan ka tagno waa inaan ka hormarno sandalkiina u gaarsiino mataqaanaa hore umar u gaarsiino haddii kaartikaad la yiraahdo waxa ka soo baxaya hal dibitay cidda doona ha noqdo waxba igma gelin 32 cafar iyo 33 Soomaaliya iyo sheekadani waxaas waxba kama jiraan dadku had doortaan cidda ay doonayaan cidda doonana ha noqdaan ta kale liiska Ismaaciil Cumar Gelle ama dawladda dhalatay la 87kii dadka adiga ka doontid ma doonayso lagu soo dooraya dadku waxaan doonaa ummaddu inay doorato ka u shaqeynaya ta kale waxaan ka iloobo walaashaydiyay inaan laga dhigo deputation 2 sanadood senataradana 5 sanadood laga dhigo senatarada waxaan doonaynaa in laga dhigo 25 maadaama ay 4 gobol iyo Djibouti noqoto 5 gobol 25 senator gobol kastaba 5 ka soo baxaan iyo Djibouti iyo deputation inay ka soo baxaan proportional on the population base waxay ku dhigan tahay hadii la bixinayo 130 kursi waa in population lagu baaseeyo Djibouti ha u badnaato iyo districtyaasha mataqaana si loo kala badan yahay wana karaasada loo bixiyo ma aha inaan la yiraaho reehib walaayntan intan jilibka furlaba la siin intan jilib badato meelaha la siin in jilib cisaaqa la siin war waxa waa inaan dhaafno hore u marno oo dadka Djibouti ku abuurno meritocracy sanadkii hore u marno qorala walaash waad mahadsan tahay
أحمد ريالي إسلا سؤال شاسدان كويديو habkeebaad dawlad u wadi lahayd hadiiba laga dhigi lahaa madaxweyne ama lagu fikrad lagu weydiin lahaa ma habka uu Cabdalla Cabdo sheegaya mise habka duwan xalal ini baan rabaa inaan ka hadlo oo aan jeclahay inaan dadka in badan amba dhegeystayaasha aan la wadaago qofku marka uu ka meel ka baxsan wadankiisa uu ku nool yahay uu ku nool yahay amba Europe amba German amba Belgium amba whatever meeshuu doonay baa ka noolada dunida dal ayuuna nool yahay constitutionada wadanada uu qofku ku nool yahay kolka la sameynayo waxaa lagu jaangooyaa habdhaqanka ummadda loo sameynayo dastuurka dad walba oo dunida ku nool habdhaqan u gaara ayuu leeyahay system ay maskaxiyan u fikiraan ayuu leeyahay jaranjarooyin soo badan ayuu wuxuu soo maray marka wax la sameynayo waa in habka ummadda aad rabtid aad xakuntid waxaad u sameynayso waa inuu ku jaangoonaada mar walba marka dadka reer Djibouti waxay haddaba leeyihiin dastuur aad u qurux badan oo kolkaad si fiican u akhridid dhan walba ka dhan oo si aad u qurxoon loo tafaqiray laakiin ku dhaqankiisii baa meesha ka maqan oo dalkii wuxuu iska noqday hay-adihii dowladda uu shaqooyinka u kala gaargaar ahaa ayaan jirin oo garsoorkii baan jirin baarlamaankii baanan awood lahayn laanta fulinta kuwa la yidhaaho oo amba xukuumadda iyo madaxweynaha yaa haddana siiba iyaban haddana fulintoodii ku wada filayn oo hal qof amba koox yar baa wadankii shaqadooda gacanta ku qabtay taasi dee waa waxa keenay in wax badan ay meeshoodii ka baxaan haddiise waxa sharciyadiisii saxa oo lagu dhaqmayo la sameeyo Djibouti waxaan qabaa inay leedahay constitution aad u tayo fiican laakiin waxa dii la qoro oo macna loo yeeli waayo oo lagu dhaqmi waayo oo wax meel uun iska yaalo u noqdo dadkii samaysay wuxuu ugu fulan yahay markaa ma jiro wixii dee la sameynaya ee dalka Djibouti laga sameynayo waxaa muhiim ah qaab nololeedka ummadda wax loo sameynayo in lagu jaangooyo ayna tahay maaha inaad tusaale ka qaato anigoo halkan Belgium degan Belgiumku sidan buu yahay sidan muxuu waxa u qabto Faransiiska deganahay sidan buu u dhaqmaa sidan maaha waxa sameeyo dad baa sameeyo dadkuna ummadaha lagu jaangooyaa taas baan iyaan kaga sii baxaya waxay la tahay dadka reer Djibouti iyo wixii la sameynayo qof xil loo dhiibo oo madaxweyne ah maamulka dalkoo dhan ma wadi karo oo sidiisa wax walba uma wadi karo dalku laamaha oo dhan ayaa shaqada leh laamaha howlgelintooda iyo shaqadooda inay u wada banaanaan in la sameeyaa mar walba muhiim ah hadday taasi jirin waxay iska noqonaysaa wax walba oo iska joog oo iska hadal una laakiin ma noqonayo wax effective ma noqonayo wixii tabagalayo haddaan anigu xilla ii dhiibo oo aan amba qof kaleba loo dhiibo qof shakhsi oo madaxweyne noqday hawsha sida ay tahay uma fulin karo haddii uunan dee uu iska noqon sida kan hadda meesha ka taliya isagu dalkiiba uu noqday wuxuu isagu leeyahay intaas baan taa ku sharxayaa laakiin dee Djibouti iyo xilalkan hadda sheegaysay qowmiyadaha ay loo kala qaybiyeen lagu jaangooyay qabaa'ilada inay kuraasta helaan xilli baa la sameeyey waabaa la sameeyey xilliga hadda xaalad jirta markaa lagu jaangooyay iyo dadkii markaa joogay iyo duruufihii markaa joogay baa markaa lagu jaangooyay way u furan tahay dadka reer Djibouti in dib u eegis lagu qabayn karo waxna laga bedeli karo waxna lagu kordhin karo oo wax dee ummaddu ay leedahay afti leh qiimayn leh hadba siday dantu tahayna markaa wax loo wadi karo laakiin waxay ila tahay waxa dee hadda ka horeeya laga hadlayo war dalkii dhan ee Djibouti hadda aaway halkuu jooga ayaa maamula waxaanu ku dhaqmaya u yahay waxay ummadda reer Djibouti ay u qalma oo ay xaq u leedahay inay ka hadasho arrimaha nooca ah iyo sidii haddii la iskula fahmi waayo looga hortagi lahaa in laga hadlo baa muhiim ah dalkii baaba ah dal hadda xoog lagu haysto haddii uu xiise meel xoog lagu haysto oo sharciyad lagu haysan oo qasab ah haddii aad sharciyad iyo sidan baan ahaan iyo sidan ay meesha taalo waa iska hadal iyo iska dhawdhawaaq uun laga sheekeynayo iyo lama eko Djibouti hadda in uu ka jiro dal madax bannaani buuxda sharciyadii ummaddu ay kooxdan ku dooratay ku dhaqmay inuu yahay lama ekaaniga aad baad umahadsantay Axmed waxa weeye horta afkaarta kala gedisan waa sunnat alxayaat
oo wax la ogol yahay qof walba fikradiisa inuu dhiibto labada fikradoodna way kala gedisan yihiin marka waxa weeyaan waa waxyaabaha looga baahan yahay doodaha inuu qof bini aadan uu soo dhigto doodiisa uu yiraahdo anoo habkaasaan hayaa ana habkaasaan hayaa qof dadka bini aadanka iyo dadka shacbiga iyaga marka choice-ka iska leh qofka ay dooranayaan ama qofka fikradiisa qaadanayaan su-aasheedii xigta waxay tahay cabdulla cabdu haddaan kuu soo noqdo qofka reer Djibouti ah ee cararaya ee doonaya inuu dibiteen noqdo ama minister ama madaxweyneba ka soo qaado ma inuu noqdaa qof Djibouti soo ku dhashay aabihina ku dhashay mise habkan loo isticmaalo adduunka ee qofku hadduu soo galo uu ku karo nationality-ka dalka uu qaato oo inuu noqon karo wax وسؤال فعلا ويان waxa weeyaan marka dawladda ninka xisbiyaashu markay cararaan oo xisbi helo waxa kama dhigno inaan laga dhigo kaba soo qaadin ka dhaqankan leenahay prime minister waxa leeyahay afar weeyaan anigu waxaas ma aaminsan waxaan aaminsanahay ninka madaxweynaha noqday ummadda dooratay waxa weeyaan asaga inuu doorto tabinigiisa weeyaan cidii oo shaqada wadi karta dadka loogu dhiibo meritocracy aqoon iyo experience loogu dhiibo shaqada si uu wado laakiin anu ma aaminsan in qofka lagu keeno reehbil buyo oo wiila shaqeynaya oo reerkoogan helaya waxaan u baahanahay dad shaqada wadi kara cidda doonta noqoto su'aasha nationality-ga mid baan u ogolahay waxa weeye wixii madaxweyne ka hooseeya ninku hadduu Djibouti ku dhalan ma noqon karo madaxweyne oo inuu Djibouti ku dhasho weeyaan kuwa kale oo dhan way noqon karaan wasiir wax kasta dibite senatoro wax kasta way noqon karaan except madaxtooyada inuu qabto waxaan taa keentay inuu qofku dalkiisa iibin hadduu dalkana ku dhashay dalkiisa iibin karaa waxa weeyaan waxaan ognahay anigu ma cambaaranayo Ismaaciil Cumar Geelle in Ethiopia waxyaalo badan u saxay oo lacag bilaash siiyo waxa kamid ah markuu lahaa boorka ma waan caawinayaayo dib bay ku jiraan muu eegin dibta ay ku jirto Djibouti dibta ay ku jirto waa taa ma aaminsani waxaan aaminsanahay in xudurtiisa ku aasan tahay Djibouti inuu madaxweyne ka noqdo dadka kale ee reer Djibouti ee warqadaha la siiyo waxay doonaan bay ka noqon karaan dalka way ka shaqeysan karaan wax kasta ka noqon karaan madaxweyne maahine waxa way madaxweynuhu waa wax muqaddas weeyaan min dalka ku dhashay inuu noqdo weeyaan laba su'aalood halkaasi waxa weeyaan maaha qasab waxa dhici karta inuu aabihi ku dhashay dalka laakiin isagu China ku dhashay ninka reer Djibouti kaas ba loo ogol yahay marka inuu madaxweyne noqdo ilaa aabihi baa ku dhashay isagana China uu tagay aabihi baa ku dhashay China waa sidee sheekada arrinkaas ma waxa weeyaan ma hadduu ku dhashay China oo aabihi safiir ahaa kaas uu noqon karaa waxa weeyaan sharciyaashan dhigan doono bay kamid tahay waxa la diidan yahay waxa weeyaan inka wuxuu yiri Ahmed dhulka aan ku noolnahay inaan fikrado qaadanaa maaha anu waxaan leeyahay inaan qaadano wixii fiican waana la qaatay ay dalkan ay ku maareeyeen si heerka ku gaareen waana qaadano wixii dhaqankeena ka soo horjeedana qaadano maaha laakiin wixii fiican waa la kala qaataa adduunka constitution markaad eegtid western country aad bay isugu dhow yihiin inkastoo maraykanku aad uga sii duwan yahay iyaga way isku wada dhow yihiin waayo fikradaha waa la kala qaataa laakiin dhaqankaaga lagu dhaqaa wixii dalkaaga wadaya waxa weeyaan qofku hadduu aabihi mission loo bixiyo oo dawladda u shaqeynayay ay dawladdu dirtay oo halkaa ku dhashay madaxweyne uu carari karaa laakiin shakhsi mataqaanaa aniga iga soo qaad Djibouti aan ku dhashay Maraykan baan imiday waxaan weydiistay political asylum yaan weydiistay waxaan helay mataqaanaa sharcigii dalkan baan helay dabadeedna wadani baan ka noqday madaxweyne ma carari karin waxa weeyaan dastuur baa yaalla in dalkan ku dhasho laakiin ma hadduu aabahay noqon lahaa nin Maraykana oo anigu aan Djibouti mataqaanaa ku dhashay oo safaaradda aabahay ka shaqeynayay halkan waanu carari karaa bay ka dhigantay waayo mission buu aabahay u baxay ahayd bariga oo u shaqeynay dowladda Maraykanka badi Maraykanka waxay yiraahdeen ninka military base ku dhasha waxay ka dhigantahay inuu ku dhashay dalka Maraykanka inuu ku dhashay marka taasaa kala duwan markaad weydiisay waa nin reer Djibouti markii hore ahayd oo aabihii yahay oo aabihii safaaradda ka shaqeeyo yes uu noqon karaa waayo aabihii wuxuu shaqo u baxay halkaaba ku dhashay wuu noqon karaa laakiin waxaan ka hadlayaa dadka naturalizega noqda ee mataqaanaa Djibouti ku dhalan ee warqadaha Djibouti hala waxaan leeyahay ma noqon karaan madaxweyne ma noqon karaan dalka maya su'aasha isaan bay ahay waxaa ku yani aabihii baa ku dhashay matalan aabihii ka baxay dalka uu joogaa maaha qasab inuu safaarad ka shaqeeyo maaha shaqo inuu Djibouti ugu maqan yahay ilmahaasi meel ku dhalan kara laakiin aabihii baa Djibouti ahaa oo ku dhashay oo warqadihii haysta kaas baan ka hadlayaa anigu waxa weeyaan aniga ma garanaysaa ubadkayga halkan bay ku dhasheen waxaan leeyahay ma carari karaan dalka waxba kama yaqaanin dhaqanka dalkana waxba kama yaqaanin halkan bay ku dhasheen halkan bay ku koreen halkan bay haystaan dhaqankooga markaa madaxweyne kale ku dharay
waxa la wixii ka hooseeyay madaxweyne laakiin waad u ogoshahay inuu qof qaatay ها sharciga waad u وحي كلا صح وحي كلا دون وين نقون كران مدحوين وين نقون كران waxa uu janjeerayaan dalka Mareykanka waayo waxay ku soo kordhashana ku soo koreen dhaqankan marka wax lagu aamini kara maaha madaxweynaha dalka waxa lagu aamini kara madaxweynaha dalka nin dalka ku dhashay oo dalka ku nool oo dhaqankii dalkana wata yaa loo baahay waad mahadsan tahay Ahmed sidoo kale su'aashaas maxaad kaga jawaabi lahayd anigu kulli waxaan qabaa waxaan u malayn qofka reer Djibouti marka uu yahay ee uu haysto dhalashada dalka Djibouti haddii uu dalka reer Djibouti uu dibadda uga baxo oo uu meel kale ku koro ama uu ku dhasho waxa uu diidi karaa dalkii asal ahaan ka soo jeeda inuu xil isaga sharxo fikirka nooca ah ma qabo imana muuqdana waxa qofku matalan ilmaha walaalkay Cabdalle ee ku dhashay dalka Mareykanka ah si waa qof ku tagay u socdaalay dalka halkaa uu ku tarmay laakiin qofku mar walba wuxuu leeyahay asaliyad uu ka soo horjeedo oo uu ku abtirsado oo uu ku noqdo tusaale ahaan waddankan Israa'iil loo yaqaano dad badan oo xitaa madax ku soo noqday waddanka Israa'iil ba kuma dhaladin qaar baa waddanka Romania ka soo jeedo ku dhashay oo halkaa isagu isku dhashay isaga naftiisa ku dhashay oo aabbii baa ku dhashay haddana waddankan buu madax ka noqday qofku meeshuu doonayo macaalamka ka soo jeeday asaliyad uu ku abtirsada ayuu leeyahay qofkii haddii asaliyadiisii la yidhaaho waxba kama noqon kartidba maadaama ood waddan kale aad jinsiyadiisa qaadatay aniga aragtida nooca ah inay saxan tahay ma qabo qofku mar walba meeshuu asal ka soo jeeday wuxuu u yeelan karaa awood uu xil kaga qaban karo oo uu ku matali karo dalkiisii haddii uu wax ku kordhin karo xilkuu rabana inuu u ordi karo ayaan kulay qaba aragti ahaan waa say igu tahay ma qabo fikirka Cabdalle uu qabo waanan kumana raacsani isagu sa aragtidu u jeedaysaan u malaynayo dadka ku dhashay ku dhalan Djibouti ee dalal kale ka soo jeedo ee iyagu Djibouti yimiday ee waraaqihii qaatay uma ordi karaan inay noqdaan qof xilka madaxtinimada ee dalka Djibouti aragtidiisu saas ahayd baan u malaynayaa taas horta wax walba oo la sameynayo waa aragti waxa laga hadda ka hadlayno wax walbana waxaa lagu salayn karaa ama lagu jaangoyn karaa waxay dadku heshiiyeen bay noqon karaan maaha aragtideedu waxaan odhan karaa ma habboon waan odhan karaa may way habboon tahay odhan karaa laakiin dad ogol oo wax isla ogol markay meel ismaadiin wixii intoo la xisay jaangooyo ayaa dabadeedna loo gudbiyaa laanta sharci dejinta oo baarlamaanka loo yaqaano ay ummadoo dhan leedahay dabadeed kuwaasaa mar walba go'aan ka gaara laakiin soo jeedinta mar walba way u furantay aniguse waxaan qabaa qofku haddii uu mar walba leeyahay dhalashada in la kala saaro ma in oo haddii qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaad lagu kala qorqoro oo haddana hodhow loo kala eego xilalka waddanka loo kala qabanayo aragti saxa ku leeyahay lama muuqato waxaan qabaa in cid walba ay ordi karto bayaan qabaa oo aan taas ku dheedo waa ka soo jeedaa waay waad mahadsan tahay Cabdalle Cabdo su'aal baa taal meeshaan odhanaysa markaad u ogoshid qof kaste fikradaada yani inuu hadduu soo galo uu ku koro Djibouti uu sharcigeeda qaato inuu meel qabsan karo dalkan dad baa loogu yimiday nin walba meesha uu degan yahay ilaahay baa darmaantiisa u dhigay ma dhici kartaa markaa dad kale oo ajnabi oo yimidayba dhulkii inay qabsadaan markay wax kasta ka noqdaan oo dadkii dhulka loogu yimiday ee dhulkan ku dhashay ee u dhashay in dhulkiiba laga qaado waa sax weeyaan taas waa tan ka cararana waa taa weeyaan inaad dadka dalka markale ku dhashay ee ajaanibka ee warqadaha Djibouti qaatay inay dalka madaxweyne ka noqdaan waxa weyn waa fikradayda ummadda reer Djibouti ba u taallaa hadday ogolaanayaan Cabdalle wuxuu ku qasbay ma jirto waa dastuur la sameyn karo oo ummadda la hordhigi karo hadday ummadda ogolaadaanna waa sax weeye waan ku raacayaa waxa weeyaan majority unbaa la raaca markaste laakiin waxa yani markaad eegtid experience-kayga amba ma garanaysa dalalka badan baan ku noolaa anigu dalkan waxaan ka baxay 1976 Canada ku noolaa anigu moogtahay waxyaalo badan bay ku baraysaa markaad dibadda ku soo noolaatid waxa weeyaan nin ajaaniba ka soo qaado Italiana oo warqadaha Djibouti qaatay bari madaxweyne ma u arag karo anigu ma yaan lahayd dhaqanka dalkan maaha wax kasta uu ka noqon karaa madaxweyne laguma aamini karo nin dalkan u dhalan laguma aamini karo taaganahay waxaas wax soconaya maaha
waxaa loo baahan nin dalkan u dhashay inuu maamulo dalkan laakiin wax kale oo dhan way ka noqon karaan baan iri walaashaydi socaaday haddii kale su-aal kale haysina weydii waxa weeye waan fahmay tahay waxa ujeedadeedu ay ahayd yacni markaad u ogolaato wixii ka hooseeya oo dhan yacni dadka ajnabigaa noqon kara ka talyaanigaa noqon kara ka jaynaha noqon kara wixii ku dhashay warqad qaatay amaba yuu ku dhalo ku koray baa wada noqon kara madaxweynuhu waa shaksi waxa ka hooseeya oo dhanna kuraasta kalaa ka badan yacni taas baan ka hadlaynaa wixii waa la wareejin karaa waxa wareegaya wixii taa baan ka hadlaynaa waan gartay walaashay waxa weeyaan qofku hadduu kartideedii haysto uu dalkani warqadeega qaatay uu shaqadii qaban karo wax loogu diidayaa iska yar ma garanaysaa waayo shaqadii buu qaban karaa opportunity baad samaysay warqadahaad siisay sharcigaagaa siiyey warqadaha sharciga aad dhigatay warqadaha u fasaxay wuxuu yidhi ma garanaysaa axmed yuhuudda meel kastay ku dhashaan waa israa'iil ka carin karaa waa runtii waa dad yar sharci bay dhigteen dee sharciga hadday rejibuuti isku raacaan dhigtaan sharcigaanba waa unbaa raacaynaa waa waxay ummadda u taalla rejibuuti wey wax nin shakhsiga ka soo baxaysoo leh saha lagu dhaqmo maaha waa fikradayda unbaa dhigtay laakiin sharciga jabuuti haddaa saa lagu dabaqo ay ummadda reer jabuuti ogolaadaan majority ogolaadaan dee taa unbaa lagu socon waa sharciga yuhuudda ka taalla israel ka taalla ta kale waad weydiisay meritocracy-gu waxa weeyaan waxaad arkaysaa dhulal badan aan ku noolnahay dad ajaanib oo warqadaha helay inay wax ka noqdaan baad arkaysaa waxaa kamid ah waxaad arkaysaa gabadha soomaaliyeed ilhaan cumar waa dibite oo baarlamo des États-Unis federaalka ka tahay waxa u furay opportunity-ga waxa u furay maadaama ay ku dhalan dalkan laakiin jisadii Mareykanka haysato way u carin kartaa senator iyo dibite ba u carin kartaa wasiirna waa laga dhigi karaa haddii ay dowladda Biden haysata maanta ay u baahato ee aqoon badan leedahay way soo gelin kartaa administration inta u bad u jeeday waayo aqoonta waa la kala qaataa waa la kala faa'iideystaa qofkaasi wuu noqdo nin wadani ah maadaama warqadaha qaatay oo dalkan wixii dalkan u wanaagsan uu hirgelinayo maxaa loogu diiday meritocracy dalka uu meel u marinaya u baan leeyahay laakiin de sharciga ummadda reer Djibouti uma sharciga ma garanaysaa ay kay doonaan uma socon doona آخرka iyagoon ba iskale waxay ku qaadanayaan laakiin anaga waajibkeega waxay tahay inaan wareysano idinkuna wixii fikrada aad la siisaan iyaga shacbiga reer Djibouti qaraarka aakhirka qaadan doona waa sida waad mahadsantahay Cabdulla Cabdo Axmed waxa weeyaan maadaama ay aaraadiinu kala gedisan tahay haddaan su'aal kale uga gudbo Djibouti waad aragtaan waqtiyadan dambe falnafrad hadiiba ay xukuumadani socotaba waxa weeyaan waxa laga hadlayaa waxa maxaa meel noo yaala maxaa dhiganay meel dadkan mucaaradaya ama ha ka soo jeedaan xisbi ama ay ka soo jeedinay maxaan markaaba lagu qaban karaa dawlad ku sii gaara la sameey buuri Cabdulla Cabdo haddii aaban nidhaanaba dawladii way socotay dawladdan dambe dhalanaysaa waxay madaxa la gelaysaa intaasoo shacbiyad ah oo jinsiyadoodu kala gedisan yihiin oo nin walba dayn ku haysto dawladdaas jadiidka iman doonta taynuhu dhul buu ku odhanayaa anaa dhiso anaa iskale waayo waa dayn carabi waxay ku odhan carabi anaa odhan carabtu waa 22 dal khaliijka dad ka soo jeeda siiba Dubai boor baa sameynay ku odhan Ethiopia waxbay sheegan talyaaniga waxbuu sheegan turkida ugu dambeysay waxbay sheegan nin walba af buu kula iman afkii faransiiska isticmaalka ugu horreeyay noo yimidayna waan fahmi weyno markaasaan soo degno oo soo dejisan maantana 10 af baa kula jooga oo kala cayn oo Mareykan leh af walba leh wuxuu kula intaasoo dadkaas isku yimiday oo dhan dhulkii fadhiya waxaan nigu leenahay dayn waxaan u baahanahay waxayagii ama dhulkii baan qaybsanaynaa saami qaybsigaas ka dhici doona Djibouti habkeebay uga hortagi kartaa dawladda jadiidka imanaysaa well wadamadan aad hadda tirinaysa magacdooda waa wadano laga siiyay dalka baysas wey waxaynan baysaskana kira lacageed baa laga qaadaa dhulka lacag bay ku degan yihiin dadka reer Djibouti ayaa hadda gebi ahaan wada mucaarada oo intiinan meesha fadhida ee inta Djibouti ku nool baa wada mucaarad waxay dee ku khasbay mucaaradnimada waa cadaalad dalka ka jirto dadka reer Djibouti ma ahin lama odhan karo dad karti aanan u yeelan karin inay dalkooga iyo dadkooga maareeyaan lama odhan karo waaye ay ka xumayd oo 77 kolka la eegay aqoonta iyo wax walba oo dadku hooseeyeen haddana fikir siduu doonay baa u soo daalaa dhacay dadkani ku soo gaaray ilaa maantada la joogo
maanta oo aqoon nooc walba ay dadku leeyihiin inay maaraysan kari waayaan amba jiha ay uga tallaabsadaan marxalad walba oo soo wajahdo ma filayo inay taasi jiri doonto caqabada jirto ee dadka caburinta ku hayso waa dadka hadda meesha ka taliya oo taladii dalka iyo dadkii intellectualka ahayd dadka madax jebiyey oo cabsi iyo qofku inuu hadli waayo isagoo danahiisa yar iyo naftiisa wax qabsanaya iyo dadka qoyskiisa khasab ka dhigtay in aamusan waxaan dee anigu qabaa talada soo jeedisay ku dayma ayuu isku leeyahay wadooyin sharci ah oo wax loo kala baxo ayaa jira ma ahin uun dee dukaan yaroo meel ka soo wareego waxan iyo waxan maaha cid walba iyo qaab iyo basar wixii loo sameeyay ayaa jiro laakiin haddii day jirto inuu jirtay in kale hadda taas ma ogi inta badan wararku tiri kuteen oo badan oo dayna oo meelo badan laga soo warwariyay oo dad badan soo kala warwariyaan oo badan waan arkaa laakiin wax de rasmi ah oo la leeyahay taa iyo taas ma arag laakiin waxaan qabaa dadka reer Djibouti haddii ay aqoon kama maqlaan hadda haddii maskaxdooda la furo hadda oo loo furo sida ummadaha kaleba imid dalka Soomaaliya arkaysid dadku maskaxaan way furayeen qofku wuxuu rabo qori karaa wuxuu dano dhali karaa aragtidiisa siduu rabo u sheegi karaa laakiin dadka reer Djibouti way adag tahay isagoo Djibouti jooga aragtidiisa isagoo oo aqoontiisa kaashanaya inuu isticmaalo way adag tahay marka waa dad ku dhex nool qaflad amba xabsi madaxa ka furan marka dadka reer Djibouti waxaan anigu qabaa aragtida nooca ah ma aad hadda ka shaqaysay inay ka dabaalan karaan ayaan qabaa in dalkoogana ay maarayn karaan ayaan qabaa in la hagi karo dhanka ugu saxsan ugu macquulsan inay samayn karaan kulli waan qabaa intaasaan ka baxayaa su'aasha aad baad u mahadsantahay cabdalla cabdo adiga oo dhaqaalaha soo bartay oo wax badan ka yaqaan oo maqlaysayna muddo dheer Djibouti ina dayn fara badan lagu leeyahay fikradda Axmed uu ka hadlayo ama ra'yiga uu soo jeediyay uu leeyahay waxa dhici kartaba waxaan ku trikuteen ay tahay in daynba ay jirin oo yani wax adu maxaad oran lahayd may wallahi deenkan uu jira deenan badan bay gurteen waxa shiinaha 80% of PIB ga weeyaan ma garanaysaa katran percent ka badan qaamuhu qaatay wadigii dhigeysanay shalay RFI baan dhigeysanay waxay lahayd inuu Ismaaciil Cumar Geelle uu corrupted uu yahay uu dadka gubo ka qaato that's why ay u soo degi lahayn kubaniyasha dalka ajaanibka ah waxaad eegtaa lacagaha la qaatay iyo waxa dalka loo qabtay 10 boor maxaa lagu fareeyaa faa'iido male 10 boor wax shaqo abuur la markaad amaahanaysid wax shaqo abuurayaad u baahan tahay inaad samaysid boorka shaqo badan ma abuurin kuwii markii hore ka shaqeynay boorkii hore halkan la keenay marka dawladdan waa dawlad fashilantay dawlad ma garanaysa dhaqaalaha soo loo maariyo garanaysa maaha waa la xisaabtamaa waxaaga wax lagu dhistaa horta waa Djibouti lacag badan baa soo gasha waxaan joognaa 3 iyo 4 sanadood wixii aan dhaqan aaway boorkan 4 milyan baa soo gasha 2 milyan Ethiopia sheegatay 2 milyan Canada way soo gasha dalkan waa 4 milyan dollar bijega Djibouti 1 milyan kama badno la xooluhu xagay maraan waxa weeyaan meeshan waxa jirin transparency baa jirin xoolaha ma taqaanaa lama maareeyo nin baa ka taliya oo saa doona loo boobaa waad arkaysaa in dalka Djibouti ummadda reer Djibouti 180 ay gaajoonayaan haddii maanta Djibouti ay waa oran lahayn ummadda reer Djibouti maanta way dheregsan yihiin oo waa dad dawladooda wax u qabatay waa annaka boqor ka dhigi lahayn Ismaaciil Cumar Geelle laakiin waxaad arkaysaa sidoo uu soo qolay ummadda reer Djibouti shaqo ma hayaan takhtar male caafimaad male development waxa ku ka bilaabmaa waa jeebka bani aadamku ka bilaabmaa development lagu sheegayo waa laba shay qofku inuu helo peace freedom of expression freedom of press iyo ahlo qofku inuu mashquul noqdo dadkii reer Djibouti shaqo ma hayaan marka daaraha laga dhisay Harmuus maaha development noogu faanu noogu soo celiyaan dadka muqsaan daara dhaadheer oo meesha yaala development wax way shaqa abuurkiiba ma garanaysa wax loo abuuro meeshani dadkan dawladda u shaqeeyo waxay xadeen milyaar franc Djibouti ba qaateen hadday gelin lahayn lacagta ay xadeen kumbaniyaal ay sameyn lahaayeen dalka ka sameyn lahaayeen ummadda reer Djibouti ka soo shaqo tagi lahaayeen waa mabsuud ba ku noqon ma garanaysa laakiin wax kumbani la yiraahdo oo 3 oo 1200 reer Djibouti ka soo baxaan oo ka shaqeeyaan ma jirto Djibouti dalka Djibouti 3 iyo 4 sano dhaqan leen waa maya tiriigii baa laga kaftoomi lahaay maxay u sameyn waayeen aqaam waxa weeyaan priority baa lagu socdaa markaad wax qaama qaadanaysid infokiyada priority Ismaaciil Cumar Geelle priority-giisu wuxuu ahaa Male Zanaawi baa u talinayay
oo ku qasbay boorka tajuura inuu sameeyo waayo fikrad bay qabeen magaranaysaa tigreegu hadday etoobiya ka go-aan inuu dhulka cafarta dhex maro alaabtay doonayaan waayo cafartay jaar leeyihiin fikraday iska wateen waxaana ismaaciil waxuu sameeyey ma jirto oo wax ka soo gaxay male zanaawi waxuu ahaa jini buu ahaa inkastuu ka baxay iskoolka terminaal c'était un génie nin fakariyo ahaa qarbiguna way jeclaayeen ta saddexaad anigu waxaan kuu sheegayaa ismaaciil cumar ninka xukunka kusii dheereeyey inuu joogo waa male zanaawi susan rice waa naagti ka tiri obama ismaaciil ha joogo yaana ula hadlay anigu waa taa waan ku xaqiijinaya waxaa ula hadlay male zanaawi susan rice asxaab bay lahayd male zanaawi annagu kuma sheegayo ciddaan la sheekaysanay laakiin waa dad waxba naga soo gaadhay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka inay susan rice ka dhamaysay inaa magaranaysaa ismaaciil cumar gelle la taaban oo halkaas sii joogo male zanaawi baa ka dambeeyey waayo danihii etoobiya fulinayey waxaan ku leeyahay shaksigu hadduu mar kale ku dhasho dhibtaasay leedahay waayo wuxuu afkiisiibuu kala hadlayo ceeb maaha afkaana ku hadashid laakiin waa nin ku dhashay etoobiya anigu waxaan aaminsanahay nin dalka ku dhalan madaxweyne kama noqon karo cidduu doon ha noqdo cafar ciise idasi maaro wuuna noqdo nin jabuuti ku dhashay oo dalka jabuuti inuu hore u mariya doonaya ayaan anigu kulahay walaashaydiyey ta kale maxay amahaan waa wax jira wayaan wax qarsoon maaha biyaha laga soo qaaday etoobiya oo 400 milyan oo dollar kaga amaaday shiinaha Soomaaliya nooga dhaweyd oo gobolka la yiraahdo Somaliland ee ictiraafsanin iyaa nooga dhaweyd ça coûtait plus d'un tiers baa noqon lahayd laakiin Ismaaciil maxaa cashay ugu jirta wayaan dawladda Ismaaciil waxa noqotay maxaa cashay ugu jirta dalkan uu qaameeyay waa qaam badan baa lagu leeyahay shiinaha kama baxayno laakiin waxaan jira siyaabaan kaga bixi karno markay dawladda jididka ay dhalato siyaabo maxkamadda waxaan la tagaynaa adduunka la tagaynaa yaan la tagaynaa in anagu amahaan ma aqoonsanin nin buu la saxday wax baarlamaan hadday martana uuna tusi waxaan aqoonsana maaha shiinahan oo saa ogaadaan sharciyaal badan baa jira looyara international qabsanayna waxaan waan ku kala bixi doonaa anaga shiinuhu ta kale kuwambaar shiinaha jabuuti ma rabno dawladda labaad aniga fikradeedu wey shiinuhu jabuuti inuu wax u taro uma joogo shiinuhu waa tuu ka darayna cumar geele waxa weeyaan dalka nafaqadiisu gurtaa waxa weeyaan dadkeena waxa uu ogolyahay mishaarka qaatan wadiga arkaya taraankii la soo qaatay ee Djibouti ay sheeganayso ashaga ka aba ninka tigirka gooya asaga wax kastaba ka marka shaqo abuurku aaway shaqo abuur ma jirto saasan wax ka baxay walaash waad mahadsan tahay adiga oo halkaas aad leedahay yacni way jirtaa oo waad qartay in ay jirto deyntu habkii loogaga bixi lahaa deyntaas sidana u imanin hadhow toole nin walba uu odhanin dhulkan kama baxaynaba ileen dawladda jiidku waxay odhan kartaaba ha layga baxaba dawladdii hore ni soo xiraysay waxay yimid oo dhan baysaska samaystay waxaan deynta geliyey dadka boorarka kuwan dhisay iga baxa hadday tiraahdo waxa lagu leeyahay anaga deynteedii la sii deyntiina wixii waxba lama hayo waxba ma yaalaan meeshii habkii looga bixi lahaa fikrad baad naga sii kartaa mise su-aasha waxaan u gudbiya axmed waxa weeyaan waxaan la tagaynaa turbulanka caalamiga adduunkan la tagaynaa annagu qaamahan uu siiyey shakhsigu siiyey dalka ma siin baan leenahay shiinahu iyo carabtan iyo dal ma siin waxay siiyeen nin Ismaaciil Cumar Gelle la yiraaho waxaan ka yeelaynaa maaha waxaan bixinaynaa maaha mana qaadan karaan dalkeena wax la qaadan karo maaha waa dal sovereign weeyaan United Nations kan waan geenaynaa looyaro la qabsada international deynka waxay yiraahdeen Mareykanku deynka waa inaad bixisaa laakiin waxay sababo lagaga hortagaa jira deynanka si u dhaceen baa leegaasaa magaranaysaa ummaddu ma ogeed baa ka horeysa ummadan dalkan lama ogaada maaha ma oga waxa weeyaan markaad amaah qaadanaysid ummadaadu weyn ogaato waxaad qaadanaysid iyo lacagtu see loo maaranayo halkay marayso ummadda reer Djibouti kama oga aanay ogeen see u bixin kartaa weeyaan anagu su'aashidu halkay tagantay si fiican waad mahadsan tahay axmed su-aal kale haddaan uga gudbo waxa weeyaan haddaan halkaa intaa aan ku joojino arrimahaasi ma u aragtaa Djibouti haddee tole in ay dabayaaqa tahay xukuumaddan hore oo haddee tole xukuumad jadiida aan u baahannahay waxaan yar rabaa inaan su-aashii hore aada weydiisay in yar aan ku laro aan ka daba tago adoo qaale koorintaan su-aashaada ka jawaabay Djibouti waxaa deymo ayaa inta badan laga hadlaa deymahana wadanka shiinaha ayaa inta badan la sheegaa inuu ku leeyahay wax justification wax caddayn ah oo aan horta anigu arkay ma jiro deyn marka la qaadanayo
iyo wax marka la galayana hadda dowladdii markaa dalka ummadda matasha ayaa shacabka uga wakiila wixii ay markaa samaynayso dowladdu waa tee weeye marka golaha shacabka ama baarlamaanka waxa loo yaqaano ayaa matasho baarlamaanka dalka Jabuuti ma yahay horta mid shaqeeya magac ahaan uu jiraa laakiin dhab ahaan ma aha wax iska magacu yaalo laakiin Jabuuti kooxda meesha ka talisid waxyaabo ay qabteen waa jiraa oo aan la inkiri karaynin oo muuqda laakiin waxyaalo ay burburiyeenna waa jiraa anigu kulli sida qabo in dalka siyaasadiisa arrimaha dibadda kor loo qaado way sameeyeen talaabada nooca waa siyaasadda Jabuuti arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa la moodaa hadda inay aad u caddahay ay magac weyn yeelatay kolka geeska Afrika iyo siyaasaddu si ay u socoto qiimeyn lagu sameeyo laba in deked boor waaweyn hadda la dhisay oo mustaqbalka fog haddii cadaalad la helo ummadda waxay u soo weynayaan taa inay jirtaan daba taagan laakiin dhibta jirta ee aan wada ognahay jeebkii bulshada reer Jabuuti baa baabaa noloshii bulshada reer Jabuuti ee lacagtan ka soo hoyanayso kaabahan amba dekeda Jabuuti ee walaalkiinba sheegay lacagta ka soo xelanaysa intay la eg tahay ayaan gaadhin dadkii inaan wixii yimaado wixii ka soo bax waa inuu bulshada gaarsamo tii baanan jirin oo aan la moodaa uun inay meel cidla ay ku dhacayso amba dee anu waxaan u arkaa wax loogu talagalay oo Jabuuti markaad u fiirsatid waa 100 malyan oo qof oo Ethiopia ku nool waxay kala soo degayaan dibad baa Jabuuti maro Jabuutina dadka ku nool waad ogtihiin inta uu leeyahay waa wax 1 malyan amba 2 malyan ba gaarsii 2 malyan qof 100 malyan service laga qaado aad uga badaya laakiin de kooxda meesha ka taliyay anigu waxaan qabaa inay dadka ugu talagalaan sidan inay u hayaan sidan gaajadan inay ku hayaan waxayna u arkaan siyaasad baan anigu aan u arkaa inay ka dhiganayaan si haddaad dadkan waxoogaa aad jeebkooga aad naaxisaan inay dhibaato aad kala kulmaysaan ka noocaa inuu ku jiraan anigu qabaa Jabuuti dhaqaale xubin aan hadda laga caban karaa ma jirtaa kulli anigu qabaa su-aasha haddii kale aad weydiisadaan uga sii gudbo ee ahayd haddaad igu celisin way fiican tahay waan ilaalin waxa weeye habkan imika wax meeshan taaganahay waqtigan ma u aragtaa inay dawladani hadda toona gabagaba tahay oo dawlad jadiida inay dhalato ay taayaan waa suurtagal dawladan waa horeba way tagtay haddii dareenka bulshada qiimeyn lagu sameeyo iyo rabitaanka dadka reer Jabuuti doorashooyinkii kuwan ku horreeyay maxeer ahaan waagaaba way tagtay haddii sharciyada la qiimeeyo tan iyo muddada xoog unbay isaga joogtay sharciyad aan la sheegi karo oo dhab ah oo dad reer Jabuuti intay doorteen ay ku sii fadhiyaan oo jirtaa ma jirto haddii imikana de ay xooggii unbay rabtaa inay ku sii socoto xooggii awalba ku fadhiday unbay rabtaa inay kuraasta ku sii xalaalaysato oo haddana ay sii fadhiso hadba dowladda dalka reer galbeedka iyo waxaan meesha joogay iyo sayska u qarqarxisay iyo farsamadeediina inay iska wadato unbay rabtaa taas way ku sii xajin kartaa meeshu waxaas laakiin da rabitaanka ummadda reer Jabuuti oo hadda aad u qaabeeyo mid ay carab buuxisay oo aad u diidan kooxda hadda meesha ka talisa inay muddo kale intaa ka sii badan ay gaajo ku hayaan ayaa muuqda oo aad dhan walba ah oo u gudbay muxuu ahaa xitaa dadka reer Jabuuti dadka ay wadaageen ee geeska Afrika guud ahaan ku wada noolaa marka taasi inay qarax keento oo explosive keento oo ay ummadda reer Jabuuti ay ka doorbidaan inay naftooda huraan amba naftooda u buymeeyaan inay ku sii noolaadaan noloshan ay hadda ku nool yihiin waa suurtagal anigase waxay ila muuqataa isbedel walba oo kooxdan bedeli kara wuxuu ku xidhan yahay shacabka Jabuuti ee gudaha jooga maaha nin qurbaha jooga iyo nin jooga ku cunay German amba Belgium amba North America ma ahayn dadka reer Jabuuti ee gudaha jooga falka ay sameeyaan iyo dadaalka ay muujiyaan iyo isbedelka jamhuuriyadda Jabuuti ku xidhan yahay waan ka baxay waad mahadsantahay anoo halka ka kacaya su-aashiisa Axmed uu leeyahay dadka reer Jabuuti waa wax iska bedelaan Cabdalle Cabdu haddaan su-aashaas oo kale ku weydiiyo ku yiraahdo si kale aan u dhigaya waxaan aragnaa bariyahan ugu dambeeyay Cali Sabiix in ay dadku ay soo baxeen ay doonayeen inay noqdaan haddii tola anagu waan baranay si loo soo baxay leeyahay ma u malaynaysaa inuu Rabiic al-Arabigi Tunis ka bilaamay inuu dayrtii Jabuuti ay ka bilaamayso Cali Sabiix وسؤال فعلا waxa in yar ma ku yar noqonaya wuxuu yiri Axmed walaalkay waxa weeyaan markaad eegtid dalkan in lagu xukumay ummadda masaakiinta inay ku noolaadaan gaajo iyo faqri waxa ku tusaysa markuu tagay Faransiiska madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ka diyaarada Ethiopia leeyahay $6 milyan
waa lacago la daadinayo 30 qof baa la qaadayaa dadkii way ka gaajoonayaan waxaa la tagayaa hodheelo ku yaala Faransiiska Paris oo 3,000 euro lagu saxanayo habeenkii tifel mat ma garanaysaa siduu lacagaha ugu ciyaarayo ummadda waa lagu xukumay inay gaajo ku noolaadaan inuu wuxuuga cuno inuu wuxuuga markasta la qaato ta kale waxaan kuugu darayaa aqalkan uu galo 20 milyan baa laga bixiyaa bishii kiradiisa haddii aan been sheegin waa sidaan warka ku hayo berigaan Djibouti ka soo baxay runtii waxay ahayd 8 milyan baa la siinayay bil kaste taana waxay ahayd 1998 marka dalka Djibouti si rasmi uga soo baxay 8 milyan baa qalkiisa lagu siinayay waxay taasi ku tusaysaa qaran mas'uulinimada ee conflict of interest lacagta ummadda la cunayo inuu gala ahayd aqalka oo komisariyaga si halkan dadku u galaan mataqaana White House-ka si ay u galaan mataqaana Faransiiska kidowse oo whatsoever waxa weeyaan islaantayda leh aqalka waad iga kiraysanaysiin lacag un baa ummadda laga guranayaa haddii aad xisaabisid 8 milyan ka soo qaadan indhahayga ku arkay tresorka 8 milyan bishii sanadkii waa imsa waa 100 milyan ku dhowdahay waa tifado yududa maat 22 sanadood buu joogaa meesha waxaasoo lacaga dalka lagu ambisgarin lahaa dalka la dhisi lahaa zero bidanville ma noqonay dalku marka looma jeedo walaashadiyay meeshani waa dad baa iska yeeshay say doolan ba ka yaraan su'aasha kale aad weydiisay waa iloobay maxay ahayd afani la raalaa saxaaday dhibaata ma jirto waan dareensanahay inaad buuxdiin oo rabtiin in aad iska soo saartaan wixii ku jiray shucuurtiinana waan dareensanahay laakiin su'aashu waxay ahayd haddii aaban ka hadalnay baa shacbiga reer Djibouti iyaga ku jirtaa gacantooda inay maanta wax bedelaan ma u malaynaysaa baan ku yidhi Cali Sabiix maanta way soo baxeen dadkii way diidayin inay noqdaan marba waan aragnay inaan dariiqaygii ma noqon kartaa in rabiicil carabigii ka dhacay Tunis inuu ka dhaco dayrtii Djibouti loo odhan karo Cali Sabiix waa sax weeyaan waana ka dhici doontaa Tunisia maxaa ka dhacay nin nafta halka hunguriga loogu yimid bay ka dhacday heedo isgubi ma ahayn halkana hunguriga loogu yimid ma shaqaysan karaan waxay ku shaqaysanayeen waa laga mamnuucay tareenka dhaka dambe laga mariyay noloshii buu u diiday systemkani u diiday inay noolaadaan ummadii free marketku wuxuu ku faacan yahay nin kasta inuu noolaado dad baa loo xiray dad unbaa meeshan haysta oo iska maamusha oo magaranaysaa macdamta dalkaas ka soo galaysa la siiyey marka way ka dhacaysaa wixii ka dhacay Tunis bani aadamka wuxuu kacaa markaad halkaa qabatid wixii halkaa yar u maray bay qabteen gaajay kula noolyihiin waxaa loogu daraa rasaas iyo dilmaa loogu daraa iyo xabsi marka way socotaa ta kale waxay ugu maqalaa ina hadda laga kacay yoobakii ka dhacay dagaalo waxa kale oo igu maqalaa ina xuduudada mataqaanaa dhanka Cali Sabiix geestiir dhulka ay dhibaato socoto oo magaranaysa ministarka interior ku wareegayo leeyahay wixii aad garan weydiin soo sheega war ummadani way kacday gaajana kicisay 3 iyo 4 sanadood bay dulqaad lahaayeen dulqaadanayeen dawladooda ay dhowrayeen maanta waxay dhowrtaan ma jirto war gaajadana waa laga baxo dawladani waa dawlad raagtay oo fakirayn waxa weeyaan waxay u haystaan in ummadda nool yihiin wax kasta haystaan marka Ismaaciil Cumar la weydiiyo wuxuu moodayaa noloshu ku nool yahay inay ku nool yihiin maninka ubadkiisa baasay caano u xiray muxuu ugu talagalay ummadda caruurtiisa laag muxuu ugu talagalay nin kale oo Afrikaanu noo keenay oo xoolihii iyo mafaatiixda gacanta laga dhiibay ummadda reer Djibouti waa laga mamnuucay waa inay wax business furtaan inay wax samaystaan waa loo diiday walaashaydii marka way qarxaysaa qarxi bay ku dhowdahay waad mahadsan tahay fikradiina aad u wanaagsan waxa weeyaan insha Allah way gaarayaan shacbiga reer Djibouti waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo dhow in ay wax qabsadaan oo ay gacan midaata noqdaan anigoo ku faraxsan maanta imaashiina halka aad ila joogtaan laba qof oo aad u qadariye aad tihiin labada reerood ee u badan dalka Djibouti waa loogu yimid la yiraahdo ka socotaan waxaan idinka codsan lahaa dadkan baraha bulshada isla soo fadhiistay ee shacbiga reer Djibouti ay qaatiyaan ka taagan yihiin ay leeyihiin wayna kala daadiyeen oo cayb ay nagu kala daadiyeen inaad nin walba idinka ka mid ah aad iniga oo midnimada ugu yeedhaya aad u sheegtaan waxay qabsan lahaayeen ee danahooga ah inta ay ka tagaan waxyaabaha xumaanta ay baraha bulshada la soo fadhiisanayaan Axmed haddaan ku horreysiyo dadkaad ka soo jeedid aad bay dadku uga murugaysan yihiin waxayna leeyihiin ma midaysnin waayo waxaana kala daadiyay dadka baraha bulshada soo fadhiista ee cayda la soo fadhiista ee qabyaaladda maxaad oran lahayd dadkaas adiga oo waano u faraya iyo midnimo ugu yeedhaya bulsho kasta oo dunida ka jirto waxay kala qaybsantaa waxgarad iyo dad maati ah
dadka maatidaasi wax walba ka filo haddaad qof aragtid intuu shabakadaha bulshada soo fadhiisto wax ay tama amba qof caayo amba reer caayo amba waxay doonaysaba haatee waxa uu ka mid yahay uun dadka maatida ah in maatinimadooda lagu ixtiraamo ay tahay markaas taasi dee bini-aadan ka maran amba qoomiyad ka maran amba qabiil ka maran hadda sidii loo yaqaano maati ma jirto taasi waa iska caadi laakiin waxa in la qiimeeya ay tahay oo muhiim ah dadka waxgaradka amba intellectualka loo yaqaano aragtida ka soo boqdanta waxaan beryahan ku arkaa dad badan oo aan u arkaa inay yihiin intellectual amba qaarkood ay sheegtaan professoro ahba run ahaantiina ahba oo marmarka qaarkood fikirka dadka maatida ah fikirro aada uga hooseeya xitaa ku hadaqtama amba ku hadhadaaqa oo badan ayaa jira kuwaasoo isku magmacaabay inay yihiin professor dadka nooca ah baa wax laga yaabo ah oo wax laga dhaca kuwana waxaan ugu yeedhaynaa war waxaad doonaysaanba ahaadee xilalka iyo waxaad doonaysaanba ku magacawnaade dadkan in kooxda hadda xoogga ku haysato iyada oo la marayo wadooyinka cilmiga iyo aragtida ballaaran in lala halgamo ayaa fiican ma haboono dadka iyagoo marxaladda ay ku jiraan ku jiro haddana usii kala qobqobtaan amba u kala saarsaartaan duca hoose ma fiicnaan kulle kuwa kula talinayna aragtida qumani iyo ummad marka la rabo in la hago waa ummad mid ah ayaad hagi kartaa ummad kala daadsan oo maskaxda laga daadiyey oo kala fogan amba kala dedsanba cid maamuli kartaa ma jirto qofka dee raba inuu ummadda mustaqbalka inuu maamulo rabo ee isagoo oon weli xil gaadhin haddana raba inuu sii kala fogfogeeyo dadkii waxaad leedahay waxaan kulley kuwa noocaa kula talinayaa xaqiiqadu sidaa ma ahina sida ay xaqiiqadu noqdo usoo eego oo usoo laamo ayaan kula talinaya aad iyo aad baad axmed u mahadsantahay insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaya inay wax kaa qaataan ereygaagaasina quluubtooda uu galo sidoo kale su-aashaas cabdalla cabdo insha allah waxaan kaa rajaynaya adigana qowmiyaddaad ka soo jeedid ee iyaguna sidoo kale waqtiyadan dambe cay hadday tahay iyo hadday tahay mataqaanaayey kala daadaadis dhulkii la leeyahay dad kalaa iskale mataqaanaayey taariikh dheer oo jabuuti leedahay iibinaya waxyaabo fara badan baan ka aragnaa baraha bulshada adiga oo midnimada ugu yeedhaya oo la xumaanta ka tega maxaad odhan lahayd cabdallo waxaan odhan lahaa anugu mataqaanaa taariikhdaa sheegaysaa wixii dalkan leh taariikh baa taalnaa taariikhdaa sheegaysaa wixii hareeraha dalkan degan taariikhdaa baa sheegaysaa laakiin aad baan uga xumahay dadka reer saaraya ummadda waana laisugu yeero oy xaq uga helaan un baan doonaynaa ina ummadda la kala dheereeyo ma jeclin inaan ummadda laisku keenaan jecelnahay ilaahay baa dadka ummadda meeshan wala dhigay inay wala noolaadaan ee walaalooba ay danowga ka raacaan laakiin dadkan intellectualka sheeganaya ee mataqaanaa ummadda kala dheeranaya ee qoys iyo cidda meeshan le iyo ilaahayna waa ogyahay taariikhduna waa sheegaysa waxay ciddan le iyo wixii ilaahay meeshan dadka ku abuuray cidna kama qarsoono dadna waynana nool yihiin dadkaana xaqaan leenahay unbay leeyihiin sababna waxaan ugu yeerayaa inay daayaan dadka kala dheeristooda dadka isku soo dhoweeyaan ay daacad noqdaan handuu halganka run ka yahay oon dadkayna doonayna cizi inay ku noolaadaan iyo sharaf aad iyo aad baad u mahadsan tahay mid baan rabaa inaan ku weydiiyo adoo raalli ah waxaad hadda mudane wariye aad ka dhawaajisay idinka oo kasoo kala jeedo labada reerood ee meesha jabuuti u badan hadalkaa ma fahmina ma ii sheegi kartaa ma adigoo cafar iyo kasoo ujeedaa ciise cafar waa dadka dhulka leh haddii aan kuu qeexa hadalka dad kale qoomiyado kalena way degaan laakiinse nin walba meel buu ilaahay darmadiisa u dhigay waxaa dhulkan loogu yimid ciise cafar sidaas daraaddeed baan ugu faraxsanaa needhi labadii qowmiyadood qofka ka soo jeeda aan halkan maanta ay igu marti yihiin oon su-aasha u weydiin karo ama aan iiga codsan karaba midnimada dadkaas wixii ila deganba waxaan rabaa inaan ku saxo halkaas oo aan dhegaystayaashana aan u sheego ma ahin ciisiya canfar ereygaasi waa erey aan ku habboonayn meeshiisii aanan joogin say ila tahay mudane wariye waxaa jirta soomaali iyo canfar wey ereygaa inaad isticmaashid baa ka fiican soomaalidu iyo qoomiyadda canfartu waa dad isku dhigmo wey kolka qabiil kamida soomaali marka laga hadlayo waa in la barbar dhigaa dadka guatemala iyo adacale iyo qabiilada nooca ah marka taariikhda loo baro dadka ay ujeedadeedu iga tahay canfartu waa nation
lagu dhigma Soomaali meeshay doonaysa baa joogta Ethiopia daga Djibouti daga Soomaaliduna inta kale ayay degtaan marka isbarbar dhig haddii Canfar iyo Soomaali laga hadlayo mar walba inaad afka bartaan ama aad qabadsiisaan ama aad ogoleysiisaan Soomaali iyo Canfar ereyga baan qabaa inaan tala idinku siiyo idinkoo saxaafadda ku hawlan waxay iga tahay uun toosin waana mahadsantahay wasalaamu calaykum wax dhibaato ah male waxa weeyaan territoirkan dadkii lagu qornaa u baan anigu magacaabay Soomaalina waa diin iyo dad fara badan haddii aad adigu jeclaysatay inaad magaca aad tiraahdid wax aan anigu kugu diidanahay male nin walba sibuu u arkaa waxaan leenahay insha Allah khayr waxaan niga codsanayaa ugu dambeyn insha Allah qof kasta hadduu dhinaciisa wax kaga dari karo wax fikrad ah ama uu goobaabin ama si walba waad inuu furan yahay saaxadu insha Allah anu su'aalayga waan dhameeyay wixii aad ku soo xidhaysaan insha Allah inaad soo xidhaan Axmed ku hore waxaan ummadda reer Djibouti kula talinaynaa gudaha joogta oo anigu waa talaan gudbinayaa taladeedu waxay tahay dadka reer Djibouti ee gudaha jooga asugina inuu malaa'ig ilaahay cid kan iga soo diro kooxdan idinka ayaa iska qaban karo dadka qurbaha ku nool horeyna hadalka waan u waxay karaankooga ay naga xaqeedeen ma jiro dhanka warbaahinta iyo ee hadal iyo mudaharaad wax walba waa la sameeyay laakiin meesha ay kooxda yari ku sugan yihiin dadka ku nool haddii ay dhaqdhaqaaq laga waayo ay guda waayaan waajibka marka ay ka saaran qofka dibadda intuu isagoo yoga ku casheeyo intuu ka soo yimaado gudaha intuu istaago suurtagal ma noqonayso hawshu waxay ka fadhidaa waa idinkoo gudaha jooga waajibaadka idinka saaran inaad gudataan dalka ayaa muhiima inaad qalbiga iyo niyadda iyo calaacalka iyo foolxumida iyo caafimaad darrada aad la nooshihiin aad la forataan oo aad buulasha hoostoota ku jirtaan ma ahay wax sax ayaan leeyahay kor u kaca wixii aad xaq u leedahay waajiba inaad doonataan baan kula talinaynaa waxaana loo dhiman oon halgan adag loo gelina cid libin lagu siin karaa ma jirto libintu kuma imaato sida la isku siiya kaadooyaasha ama hadiyadaha kuma timaado libintu waxay ku timaadaa shaqo iyo hawl iyo waxqabad xitaa mararka qaarkood dad ay u nafwahayaan iyo ku timaadaa sidaa darteed waxaan kula talinaynaa dadweynaha gudaha ku nool inay gartaan wixii waajib ee ka maqan iyaka ku maqan ay weli ka foraraan inay ku kacaan baan kula talinaynaa waana la salaamata wasalaamu calaykum aad baad u mahadsantahay Cabdulla Cabdo anna waxaan ku darayaa sidaa uu Axmed yiri waa runtii annaku wixii hiyo hooya iyana adduunka ogeysiina dhibta lagu hayo ummadayada baan karaynaa inaan sameeyno iyo internationalka inaan ogeysiino waxa ka dhaca dalkeena laakiin isbedelku wuxuu ka go'aa waa dadkeena gudaha ku nool ee dhibta ku nool iyaga baa keeni kara isbedelka iyagana wuu ku xiran yahay isbedelku dadka dibadaha jooga isbedelka waa garba keeni karnaayo adduunyada baan ogeysiinaa wixii dalkeena ka dhaca iyo hadday ummadu u baahato hiyo hooba waan garab joognaa waanaka habeen dharaar u cararana waanaka meel kasta ka baxna hadday anigu waanigi sheegay hadduu Ismaaciil yimaado waa Mareykanka waxaan ka dhoofnaa anigu California deganahay 6 saacadood yaraan sii raaci waana diyaar baan ahayo mar laba jarba waan tegay oo ka banaan baxno Ismaaciil jooga halka iyo Minnesota marka anigu intii aan karano waan sameynaa laakiin isbedelku wuxuu u xiran yahay dadka Djibouti ku nool waxa loo dhimana lama helo Axmed sheegay marka waxa la yahay isbedelka keena dhibtan ka baxa ininka isku haya dhibtan ininkana ka bixi karayahay waana ku salaamaya walaasha Sucaad iyo walaalka Axmed aad iyo aad baad u mahadsan afkaar kala gedisan waxyaabaha qaarkood waad iga egtihiin waxa weeyaan haddana waxa loo socdaaba waa isbedelka Djibouti iyo dhibaatada dadka haysata in laga saaro haddii aan gacan lagaga saarin in fikrad lagaga saaro waxa weeye xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay haddii aad wax qabanaysaan ood wax xun aragtaan gacanta kaga qabta haddii aad kari weydaanna waa inaad ka hadashaan haddaad kari weydaanna waa inaad meesha ka dheeraataan taasina waa adcaf iimaan marka annagu haddaan ka soo baxnay adcaf iimaankaa qaadanay laakiin hadalkii baa noo furan fikradaha iyo hadalka wanaagsan ee tiraadeen insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ay dhagahooga gasho qulubtooda ku hadho ay wax qabsadaan ilaahay in iyagana garab galo iyaan ilaahay weydiinaa subxaana wa tacaala aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba baaqa aad soo fuliseen aad ka soo qayb gasheen Sinaan TV aad bay idinku mahad celinaysaa si barnaamijyadan oo kale insha Allah intaan ku kulmi doono waxaan idinka marka hore idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo amaano Allah
daawadayaasha iyo ku xidhanayaasha Sinab TV idinkana sidoo kale waxaan idinkaga tegayaa amaano Allah iyo amaano rasuul في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام What my name, I know what you're